kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka BSTV waxaan idinla socodsiinaya anigoo Salmaan Joker qodobada aad ku maqli doontaan warkeena habeenimo waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagelin oo soo gaaray Muqdisho iyo dawladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga la aasay gudoomiye Riisow intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door koron haatan ku soo dhawaada qodobadaasi qodobo kale oo xiiso سنقد ونكسن داوديال رئيس وزراء Soomaaliya Xasan Cali Khayr wafdi hogaaminaya dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu safar qaatay in ka badan bil uu ugu maqnaa maamulka Galmudug رئيس وزراء Soomaaliya Xasan Cali Khayr wafdigiisa ay waxaan garoonka diyaaradaha cad ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan labada gole muddada uu booqashadu ku joogay Ra'iisul Wasaare Khayr deegaanka ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu booqday magaalooyin dhowr oo ka tirsan maamulkaas ujeedada booqashada Ra'iisul Wasaare Khayr ee Galmudug ayaa ahayd sidii loo qaban lahaa shir dib u heshiisiin iyo doorashada madaxweynaha Galmudug waxaana ku guuleystay Ra'iisul Wasaare Khayr heshiis ay la gaartay dowladda federaalka ururka Ahlus Sunna isla markaana dowladda ay la wareegtay ciidamadii iyo hubkii ururka Ahlus Sunna iyadoo boqolaal ka tirsan ciidamada Ahlus Sunna ay ku biireen ciidamada militariga Soomaaliya dib ugu soo laabashada Ra'iisul Wasaare Khayr ee magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegantay xilli maanta la sugay in la keeno dalka maydka gudoomiyihii hore gobolka Banaadir مرحوم عبد الرحمن عمر عثمان إنجنيري مدحينها دولة قبلات كونفور قلبات مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقرين أيا سو غاري مقالة مقدشو سيو وقيب قلو آسك قران إلو سميني الله أن حريستي قدوميه قبل كبنادير إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو أو كغيري دلك قدر كمركي وداوع كسو غاري قارحي دوان كدعي خرانتا قبل كبنادير مدحوينه لفتقرين أيا وتعسيدي إهلكي قرابة مرحوم مقالة مقدشو إسوغو هيجيسو قتغي وقاس كباش وكسو جي مرحومك وقاس محمود علي وقاس عبدالله وحونا ليقو برين وجندي فردوس كورابيو وقاس محمود علي وقاس عبدالله يا أمهد علي مدحينها دولة قولات كونفور قلبك مدن عبد العزيز حسن لفتقرين كسو قيب قالك آسك قرن قدوميه قبل كبنادر عبد الرحمن عمر عثمان يريسو waxaa goor la shaacin dib u dhac ku yimid keenista meedka gudoomiyaha gobolka Banaadir Abdiraxmaan Cumar Yariisow oo maanta la filay in Muqdisho la keeno laguna aaso guddiga qabanqaabada aaska gudoomiyaha geeriyooday ayaa shaacin dib u dhac ku yimid keenista meedka marxuumka waxaana ayna sheegeen in beri la keeni doono lana aasi doono meedka marxuumka wali la moogaa sababaha keenay dib u dhaca keenista meedka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo laga soo qaaday dalka Qatar waxaana maanta loo diyaar garoobay aas qaran loo sameyn lahaa gudoomiyaha مسؤولين dadweyne badan ayaa saakay ilaa hadda garoonka diyaaradaha cad ku sugay meedka marxuumka waxaana mas'uuliyiintii dadkii la kala bilaabay inay dib ugu laabtaan garoonka qodobkaas ayaa ugu dambeeyay daawadayaal warkii habeenimo ee BSTV tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh